halkan daawade waa halkudhig news haddii aad nagu cusub tahay fadlan daawade subscribe channelkan si aad u hesho wax kasto aan channelkan soo gelino wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan ayaa goordhow ka dhoofay magaalada Kismaayo isagoo ku sii jeeda magaalada Nairobi ee dalka Kenya xilli uu daqiiqado ka hor gaaray Kismaayo Janan ayaa waxa Kismaayo ka qaaday diyaarad ciidan oo ay leeyihiin militariga dalka Kenya oo saldhig weyn ku leh magaalada Kismaayo sida ay xubno ka tirsan maamulka Jubbaland u xaqiijiyeen halkudhig news xubnahan ayaa sidoo kale sheegay in sababta Janan loogu qaaday Nairobi ay tahay in lagu sameeyo baaritaan caafimaad maadaama muddo 5 bilood ah uu ku jiray xabsi guri Janan ayaa la rumaysan yahay inuu ku xanuunsaday xabsiga taasi oo ahayd sababta markii horeba looga soo saaray ee lagu soo bedelay xabsi guriga halkaas uu ka baxsaday 28 Janaayo bishan sida ay sheegtay taliye ku-xigeenka labaad ee booliiska General Sakiye Hussein